الحمد لله. سؤال أحد بأفر بديه شيخ إن شاء الله تعالى وبدينا أنت أكجارنا. سؤال شو هو الشيخ حلي هاي صلاة الصبح لو ركع كهر الله أماني دمر كوكل مثلا بريه سكرتو كذان لو ركعنا وحلران لتكذا إقامة إيه آذان كدحديث مركان دمر كمركي سوق عن قاركود حليه صلاة لحظة وكلام سكتو كذا من مروة إجتك تا ونصير ضها مركا لو ركع ما تكون كرا مر الله لمركي عن صلاة هذه لين تكذا لو ركع ضد هذا كم حدنا أقيماتنا كم حدنا وحي كحرين صلاة كحرين هذا أقيمات الصلاة حتى كتب بعضه وكلجة تكنيسو لو ركع ضد وظهر مرين كتبنا واحد تكنيس لو ذي ركع ضد صلاة الصبح حتى النبي صلى الله عليه وسلم عن المعلومات كم إذا إني انتو ساحدي سفر بوها هردا كتكسيسي كتبنا قرحة الصبح هذا بيسوق عين لو ذي ركعات بوتكذي كتبنا صلاة الصبح بوتكذي تمركم مركا يجاكم إحنا ما دام قريوا ذا يكون تكنيان آذانكم وحو تلماما يو وقتي ولا قاري صلاة وقتي صلاة ولا قاري وأن تكن كرتان بو آذانكم تلماما لكن هذه الله ولا ركعات هذا كهر رسا أما سنوين كصلاة كهر صلاة هذه كحرين حين قاعد تكنيسو بعد كهر مرينيسا تاس مدة يضعوي مركا محوها هاي مساجد كي حين قاعد تكنيان اللهم إنا تكبق ذنب يعني أدات كبق ذو أدات لوادي ركعات السنة تكتين قرحة كوكو صوبح ذو مركز وحوي لوادي ركعات السنة ميش واتك صاريسا ساينا صلاة دا أين واقو أين قرحة ذو صوبح أدات قرحة صوبح التان كذا كبق ذو مركز واحد دجينيسا صلاة الصبح والله أعلم. سؤال شكرا الشيخ هل هذا كنت مرواي هل هذا بيلك أولي ومصير الرشيق خلاص بقى كسرها استطاع كنا مرة بقى كسرها أجت يجي كسرها أنا نقول شيء يعني سكري استعمال الأرض يده في ساعة ما يقول لنا مجيء كضروري مين أنا وشيء قاعد أقول كسرها استطاع من نجيب كسرها والعكس مثلا تفاصيل ضروري مين بس أنا أقول هذه وحي اللون بحيي هذا العلاقبتين كل سمينين ربنا بدن دمرك waxay sameeyaan wixii raashinka loogu talagalay raashinka iyo cunaqabataynayaan waxbay ka soo reebayaan wixii meel loogu talagalay sidii la rabay uma fulinayaan waxbay ka soo reebayaan waxa ay ka soo reebeen waxa laga yaabaa inay siyaabo kale u isticmaalaan markaas oo kale sax ma nooc waxa ku jira khiyaano ku jirta hadii laakiin muhiimadii loogu talagalay sida ay ahayd u dhacday oo cuntadii reerka wixii loogu talagalay sidii loogu talagalay u fuliso isbitaalka ilmaha wixii loogu talagalay sidoo aha uu dhaco oo aadan waxba ka shaxaadin waxba aadan ka soo reebanin sida ay wax kaga soo haraan wixii ka soo haray oo biilka waxa fiican inaad wargeliso ninkaaga oo aad u sheegto qaasatan hadii waxoogaa ay wax fiican ka soo haraan markaasi laga yaabo meesha aad ka helayso meel ka muhiimsan oo baahi reerka inay u taalo waxaa dhici karaysa adiga inaad geliso sijaayad ku soo iibsato ama roor ku soo gadato walaadkuna inuu wax la yahay oo biilkiiba soo saarlayo cuntadiiba meel uu ka kala leeyahay ama deyno uu qabo waxaa laga yaabaa waxoogaagii soo haray inaad guriga ku quruxsato asagana quruxda uu soo joogay inuu rafaadsan yahayba oo biilkii meel uu ka soo saari lahaa deyno uu soo qaadaya marka waxa weeye adigana qurux baad ku jirtaa asagana la faahaysa sidaas daraadeed haddii la iska warhayo 2003 soo hadhay diilka mar labaad dib loo gelin lahaa muhiim waxa marka labada ruux ee gurigu ka dhaxeeyo inay meesha soo galay wax la kala qarsado inaysan haweentu waxba hoos ka qarqarinin wax la qariyo ma jiro hadii waxyaalaha yar ay yihiinna waxa fiican marka horeba inay haweentu idan ka haysato ninkeeda oo uu idan guud siiyo waxyaalaha yaryarkee soo harhara iyadoo dadaalaysa inay ku tasarrufi karto idan guud haday ka haysato marka dib mal سؤال شكرا الشيخ على الوعي حليل صلاة الجمعة خطبة الرجل ممكن نقول عيسى الشيخ صلى الله عليه وسلم كوسلين كرام مسنانتا هي قصبة
waxay kaloo leedahay ducooyinka ma ku ducaysan karaa af Soomaali ama luqado kale aan Carabi ahayn ku ducaysan karaa salaada dhexdeeda iyo banaankooda midda hore khudbadu hadday socoto nabiga barigiisana aad maqasho sallallahu alayhi wasallam qalbigaad kaga salin laakiin carabka maya laana khudbadu hadday socoto wax kale laguma mashquuli karo waa khudbada la dhageysto tawaqado salaada labaad haddaanan carabi garanaynin salaada gudaheeda luqadaan carabi ahayn ma ku ducaysan karaa waa mas'ala khilaafiya culimadu ku kala aragti bedelan yihiin saddex ra'yi baa jira qaar waxay leeyihiin sidoodaba waxaan carabi ahayn salaada ma geli karo luqad karo salaada gudaheeda geli karta male bay leeyihiin qaarna waxay leeyihiin xataa hadduu carabi garanayo salaada dhexdeeda luqad kale wuu ku ducaysan karaa isagoo carabigiiba garanayo haddana luqad kale ku ducaysan karaa waa madhab ay fuqahaada qaarkood qabaan ra'yiga ugu roon baa wuxuu yahay dadka in la kala qaado ruuxii ducooyinka carabiga ah garanaya looma ogola inuu salaada dhexdeeda luqad kale ku ducaysto ruuxii aan carabiga garanaynin una baahan inuu ducaysto culimada qaar baa qaba inay bannaan tahay inuu marka ku ducaysan karo luqada uu garanayo hadday Soomaali tahay hadday Ingiriis tahay hadday muxuu ahaay Swahili tahay Talyaani tahay wixii aad garanayso ku ducayso sidaasay qabaan waa si goorma markaadan garanaynin luqadii carabiga ahayd ee ku ducaysan lahayd laano qaasda ruux markuu sujuudsan yahay waa xilliga uu Ilaahay u dhaweeyay salaada gudaheeda waxaa jira salaada ducooyinka waa la aqbalaa ruuxii baahi baa haysa waa jiran yahay baahi baa haysa cidhiidhi baa haya ilmaha ka xanuunsanaya wixii uu dhihi lahaa oo ku ducaysan lahaana ma keeni karo marka qaar baa qaba culimada in marka luqadda kale lagu ducaysan karo wallahu a'lam su'aashan kale sheekhu waxay leedahay dhowr Ramadaan igu soo galay aniga ama umul ah ama maarta xamila ah marka waxay leedahay Ramadaanadaas qaar badan baa iga tagay haddana ma xasuusto tiradii muddadii iga tagtay intay ahayd san yeelaa san u qadayaan isla su'aashaas oo kale mid kale waxay leedahay haddii iyadoo Ramadaankii hore wax iga tagay lagu leeyahay midkii kale uu soo galo maxaa iga baahan yahay leedahay midda hore wixii aad xusuusato qalle kadibna sunno waxaad badsataa soonka sunnaha bad maalmihii kaa tagay wixii aad ka xusuusato qalle wixii aad xusuusan weydana waxaad badsataa soonka sunnaha ah midda labaad haddii uu kugu soo galo ramadaankii kale adigoon qallaynin kii hore wixii lagaaga lahaa ramadaankaas soo galay ayaad soomi kadibna ramadaankaasi markuu baxo maalmihii kaa tagay baad qallayn ma siyaadayaan waa intoodii masalada labaadna waxa way cunto lagu dari maayo sida xooga badan walow ay qabaan culimada qaarkood Imaam Shaafici Imaam Ahmad iyo ay qabaan cunta la raacinayaa qallaha laakiin mas'alo nasle ma aha marka adiga waxa laga rabaa in aad dadajiso oo aad qallayso maalmihii kaa tagay inaad soon kale kugu soo galo gaarsiisana waa khalad Allahumma inaad cudurdaar leedahay mooyee soonka kale intuu soo galay baa rabaa in la qalleeyo laakiin haddaad cudurdaar lahayd oo ama xanuun ku hayay ama duruuf aad la soomi weyday ay jirto oo soonkii kale saa kuugu soo galay markaasi dambi ma lihid qallihii uun dadaji insha allahu tacaala wallahu aclam sheekh su'aashan kale sheekh waxay leedahay odaygayga waxay tiri mar walba aan muranno aan isdagaalno waxaan ku dhahaa ifur kulama noolaan karo runna igama ahay tiri marka isaga ma iskaga celiyaa marka arrintaas ayada mar walba aan ku celceliyo diinta maxay ka qabtaa isla su'aal noocaas kale ayadana waxay leedahay ninkayga waxaan ku yiri haddii cidihiina ama qaraabadaada aad ka guursato anugu ma wada noolaan karno imana sii qabaysid marka uuna sameeyay tiri sidii uu sameeyay oo gabar in adeertiisu guursaday marka waan ishaynaa bay tiri ilaa hadda anigana waxaan ka codsanayaa inuu i furo isagana uu diidan yahay muddo 10 sano su-aasha hore oo ah haweeneyda ninkeeda furitaanka weydiisanaysa iyadoo ina dhabka ahayn arrintaasi ma saxsana nabigeena waxaa ka sugan sallallahu alayhi wasallam in uu yiri haweeneydii ninkeeda furitaan weydiisata ayagoo wax dhib oo kalifaya uusan jirin jannada carafteeda ma hesho sababta waxa weeye
ifurtan aad la soo boodaysaan wax ka horeeyaa jira dumarkii mushkiladu waxay noqotay ifurti waxay noqotay ul ay ragga ku garaacaan ifurta wax ka horeeyaa jira wada hadal baa jira wada xaajood baa jira muxuu ahaay arrinta la bariisiiyo oo bal loo yara kaadiyaa jirta laakiin odayaasha inta kuleetiga lagu dhagowna fur lala soo boodayaay ma saxsana waana midda keenta inay guryo badan ku burburaan waana midda keenta berri inaad qoomamootood shallaayaato waa laga yaabaa fur markaad tidhaahdo inuu shaydaan markaaba isagiina ku riixo ku yidhahdo waan ku furay mana aadan rabin lagu furo ciyaar ma galo baalkani furitaanku ciyaar ma galo sidaas daraaddeed wax lagu ciyaaro ma aha wax dumarku inay ku ciyaaraanna maaha wax raggu inay ku ciyaaraanna maaha wax lagu ciyaari karo maaha waa wax loogu talagalay duruuf adag oo meel laga maro la waayey oo xal loo arkay oo labadii ruux isku dhiban yihiin isku rafaadsan yihiin fa imsaakun bimacruufin aw tasriixun biixsaan xal buu noqdaa furiinku markaas oo kale laakiin gurigii oo wax mushkilaha jira waa la isku xanaaqay waa la wada dhaqan yahay waa la isjecel yahay waa la israbaa laakiin waxoogaa waa la isyaro qoonsaday markii wax yar la isqoonsado waa furtan la soo boodaysaan joojiya arrintaas sax maaha haddii duruuf keenaysa ay jiro dhabna ay kaa tahay markaasi oo xaalad ku haysata oodan la noolaan laadahay markaasi waxa weeye shareecadu waa ogoshahay laakiin in lagu ciyaaro oo laga dhigto wax muxuu ahaay ama ragga loogu cagajugleeyo ama lagu khuuqiyo ama mar walba carabka isaga bata arrintaa iyadii ma saxsana waa in muxuu ahaay laga taxadaro waay maxaa yeelay guri dumayaa ka dhalanaya guri in la dumiyana sax maaha waa hawl shaytaan waay qodobka xigaay wuxuu yahay gabadha sheeganaysa ninkeedu uu la guursaday qaraabana guursaday 10 sanana wada joogaan furitaan dhigid iyo dhaqidshana midna ayna jirin ay ku rafaadsan tahay hawshaasi waxaa iskale dadka ehelada ah eheladu waa inay dhex galaan eheladu hadday xal keeni waayaanna arrintaasi xalkeedu waxa way qaaliyada in loo geeyo maxkamadaha sharciga ah in loo geeyo maxaa yeelay labada ruux ama waa inay wanaag ku wada noolaadaan ama waa inay wanaag ku kala tagaan hadday gabadhu ay ninka la noolaan karto sabri kartana waa inay sabirto la noolaato haddii la isu sabri waayana waa in si wanaagsan lagu kala tago laakiin cadaadis iyo in muxuu ahaay iyadana mustaqbalkeedii la lumiyo muxuu ahaay ninna ayna lahayn nin la-aanna ayna ahayn muxuu ahaay rafaadka noocaas oo kaleeta ah inuu muddo intaa la jiitamo sax ma aha waa in xal la gaadho haddii xal la gaadhi waayana waa in si nabad iyo wanaaga dadku ay ku kala tagaan sida qur-aanku inoo sheegay haddii wanaagga ay ku kala tagaanna wan yatafaraqa yughni allahu kulla min sacatihi mid walba dhankiisu ilaahay u deeqaya tabaaraka wa tacaala marka hore wada joogga lagu dadaalo haddii ay socon weydana si wanaagsan oo sharaf leh in la isu daayo waayo wallahu aclam jazaak allahu khayr sheekh laba su-aal oo kale gabar ayaa la guursaday waxaana bixiyey walaalkeed ayadoo aabbaheed uu joogo meherkaas ma ansaxaya su-aasha kale gabar uur leh meher ma qabtaa midda hore oo ah gabadh aabbaheed joogo walaalkeed baa bixiyey jawaabtu wax way sax maaha wilaayada aabbaa iska leh allahuma aabba inuu fog yahay oo meel fog jiro ama meel lagala xidhiidha la waayo markaa kadib baa walaalku imaanayaa awowgaa imaanaya walaalkaa imaanaya saas wey adeerkaa imaanaya in adeer baa imaanaya waa markii midka ka horeeya la waayo laakiin aabboo jooga walaal waxba uma yaallo hadduu gacan dhaafo oo gabadha sidaa ku guuriyana guurkaas sax maaha laanna ciddii wilaayada lahayd maba ahaba wilaayada cid baa iska leh ciddii iska lahayd cid aanayn hadday ku tillaabsatona waxba ka socon maayo sidaas daraaddeed guurkaasi sax noqon maayo waa in aabba lagu celiyo aabbana gabadha guuriyo waay masalada labaad masalada kale gabar uur le meher ma qabtaa gabadh uur le meher ma qabtaa jawaabtu waxa waa maya ilaahay baa qur-aanka kariimka wuxuu inuu yidhi wawlaatu laxmaali ajaluhunna an yadacna xamlahunna dumarka uur kale ajashooda muddada lagu guursan karo ee caqdi kale uu qaban karayo waa markay umusho
hadday uur leedahay lama guursan karo hadduu uurku sharci yahay oo nin horow qabay buu ka yimid uurkani waa bil ijmaac caqdi kale iyo guur kale ma qaban karo iyadoo uur xalaala leh waa isku waafaqsan uurka ay leedahay hadduu xaaraan yahayna ayadana sida xooga badan ma qabanayo wax mehera ilaa ay dhasho markay dhasho oo ilmaha xaaraanta ilmaha muxuu ahaa sharci darrada ku uurgalay ay caddaato bannaanka u soo baxo markaa kadib baa meher saxa la meherin karayaa saasay u xoog badan tahay waase masale khilaafiya middan dambe hadduu uurku xalaal yahayna inuusan xadhig qabanaynin waa la isku waafaqsan yahay oo khilaaf kama jiro aayaddaana nas ku ah sidaas daraaddeed yacni wax weeye laba xadhig meel iskuma tegi karaan hadday furan tahayna uurkan ay leedahay ee ninkii iska lahaa hadduu xalaal yahay ilaa uu bannaanka u soo baxo ma aba yaraatee lamana guursan karo loomana galmoon karo wallahu aclam jazaak allahu khayr sheekha su-aalahan kale waxay leeyihiin biyo qur-aan lagu akhriyay oo taxliil ah musqusha inta lala galo ma lagu qabaysan karaa su-aasha kale gabar caado qabta oo musxafka ma taaban kartaa biyaha muxuu ahaayey inay biyo barakaysan yihiin iyo in loo isticmaalo muxuu ahaayey ama qabays ama loo isticmaalo in jidhka qaybihiisa hoose lagu dhaqo ama meelo muxuu ahaayey laga fiican yahay lagu dhaqo isma diidayso leanna wax weeye waad garanaysaanoo biyaha dhulka korkiisa jooga biyaha ugu baraka badan waa biyaha zamzamkana waa lagu qabaysan waa lagu istijaysan muxuu ahaayey siwajkaasay raaci karaan waa biyo caadiya haddii biyaha qur-aan lagu aqriyo cabitaan ama lagu maarmaayo in lagu qabaysto waa lagu qabaysan karaa walow ay fiican tahay meel bannaana haddii biyaha lagu daadin karo in lagu daadiyo haddana waxu diidahaya oo maanica oo sharciya u garan maayo wallahu aclam amaa masalada qur-aanka ma aqrin kartaa gabadha muslimadda ee caadada qabta masala khilaafiya misxafka ma taaban kartaana khilaaf baa ku jira qur-aanka ma aqrin kartaana iyadoo caado qabtana khilaaf baa ku jira culimadu wala aragti badan yihiin labadaba waxay u badan yihiin maya taabashadana maya akhrintana maya bay u badan yihiin laakiin daliil ahaan marka la fiiriyo nas cad oo labadaba diidayaay oo laysku waafaqsan yahay sugnaantiisa iyo macnihiisii iyo dilaaladiisa ma jiro waana midda keentay masalada in laysku khilaafo taabashadaasi kasii adag oo xadiid waxaa loo daliishadaa laa yamasu lqur'aana ilaa daahir qur-aanka yuusan taabanin ruuxan daahir ahayn ayaa taabashada loo daliishadaa akhrinta haddii la yidhahdo iyo taabashadaas sii daran wallahu aclam labada su-aal ugu dambeysa insha allah islaamba waxay leedahay caruur uu aabahood dhintay asagoo uusan ku wanqalin caruur uu aabahood dhintay ayagoo loo wanqalin wanqalkaas ma hooyadaa lagu leeyahay mise waa la iska dhaafi karaa su-aasha kale waxay leedahay youtube-ka lacagaha laga sameeyo dadka ka shaqaysta xalaal miya mise xaaraan waaye su-aasha u dambeysana waxay leedahay nin wiil ayaa kelida iska bixiyey kadibna mar kasta uu soo galo uu damco inuu soomo wuu xanuunsadaa haddana 2 sano ayaa saas ku haysta marka ma video bixini mise waa laga dhaafi soonka wanqalka masalada ku saabsan wanqalka caruurta waalidka aabbaha ayaa xil ka saaraya inuu wanqalo hadduu aabba dhintay isagoon u wanqalin hooyadood inay wanqasho way wanqali kartaa jaaniblaha loo wanqalin oo aabba uma dayaco ama uu ka dhintaba isagoon u wanqalin hooyadu way wanqali kartaa hadday awoodeedii leedahay oo ay dhaqaalo haysato su-aasha labaad youtube-ka lacagaha laga helo ma xalaal baa jawaabtu wax weeyaan youtube-ka iyo facebook-ka iyo social mediaha lacagaha laga helo inta badan beejajka dadka u furan waxay ku imaanayaan oo lagugu siinayaa qolkaaga markaad u furto iyo beejkaaga xayeysiinta markaad u furto ayaa lagugu siinayaa haddaad xayeysiinta ka xidho cidina wax ku siin mayso laakiin wax lagugu siinaya wax weeyaan
khaasatan haddii beejkaaga iyo uu kastan badan yahay oo dad fara badanaad haysato xayeysiinta ay shirkaduhu ku xayeysiisanayaan ayaa wax lagu kala qaadanayaa adigana wax lagugu siinaya su-aasha isweydiintana waxay tahay marka waxaan lagu xayeysiinayeed wax ku helayso muxuu yahay khamraa lagu xayeysiinayaa naaga qaawan baa lagu xayeysiinayaa bangiyo ribaa baa isku xayeysiinaya waxyaalo xaaraama lagu xayeysiinayaa adigana tiibaad wax ku qaadanaysaa sidaas daraaddeed waa lacag lagu helay manfaco muxarama waa lacag lagu helay waxyaalo xaaraama oo la xayeysiinayo oo ummadda loo gudbinayo oo maraya beejkaaga maraya sidaas daraaddeed lacagaha sidaa lagu helo waa xaaraam bal waxaa xaaraam ah inaad beejkaaga u ogolaato in xayeysiinta loo furo ama wax ku qaado ama ha ku qaadan wixii isagu qasab ku soo gala meesheeda way laakiin intaad ka xidhi karto inaad ka xidho waa laazim waay sababtu waxa weeye wixii beejkaaga soo gala oo xumaan ah oo shareecada ku khaldan in alla inta beejkaaga ku jirto oo dhan buu wada gaadhaya fasaadkaasi inuu saa u faafana adigaa qayb ka ah haddaad qayb ka tahay haddana inaad xoolo kusii qaadatana waa xaaraam arrintaasi waxa weeye dadka ka shaqeeya waxaa nasiib xumo ah dad badan oo wadaadaha baa ka shaqeeya dad fara badan oo dadka ahludiinka ah baa ka shaqeeya oo beejajka intay furtaan xoola ku urursada waa cajaa'ib waxa ay xoolaha ku qaadanayaan waa waxaan aan ka hadlayno wax bilaash la isku siiyo ma jiro wax la isku sadaqaystana ma jiro meeshu meel sadaqa ma ah meel ixsaanna ma ah meesha waxbaa la isdhaafsanaya waxaan lagu siinayo waxa weeyaan waa adeeg aad qabatay adeeg aad qabatayna waa waxaan xumaanta ee aad faafisay iyo xayeysiintan aad faafisay baa wax lagugu siinayaa ayadana xaaraan inay tahay shaki kuma jiro wabillahi tawfiiq inta su'aalihi ku qaadan laba qodob midda koowaad sheekh dad badan oo su'aalihi xashmil soo qaray waxa ku jiray dad xanuunsan iyo dad dhibaataysan oo duceeyay codsanaayeen oo duceeyay midda koowaad midda labaadna waxaa jirta oo ayadana ku jirto farabadneed dumar badan oo ka calcalayaan in aabayaasha carruurtooda ay dayac fara badan ku sameeyeen oo lacag iyo biil una ay siiyaan wax kaloo laakiin daryaal kale iyo maaragtay tarbiyadii iyo carruurtii ilaalintoodii iyo inaan shaqo ku lahayn marka waxay leeyihiin maxaa lagula dardaarmi lahaa raggaas noocaas oo kale oo carruurtii cunto un iyo guriga kelidiisa un ugu dadaala inta kalena dumarka ku sii daaya horta middan dambe mas-uuliyaddu waxay saaran tahay marka koowaad aabbahay saaran tahay hooyaduna dhinac bay ka saaran tahay yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naara mas-uuliyadda koowaad aabbaha iska leh biilka iyo masruufka iyo xuquuqda hooyada iyo xuquuqda carruurta iyo tarbiyadoodaba isagaa qayb libax laga rabaa inuu ka qaato hooyaduna qaybteeda ay qabato laysu kaashado way jirtaa cabashada gabdhuhu ay soo gudbinayaan waa wax xaqiiqoo jira odayaashii iyo raggii inay mas-uuliyadooda in badan oo ka mid a dayaceen qaarka ganacsatada ee mashquulsan waa mashquulsan yihiin qaar waa hayru mas-uuliin oo mas-uuliyadba dad qaadi kara ma aha qaar badan mas-uuliyaddiiba ma dareensana way jirtaa laakiin waxaan idin dhihi lahaa sanadahan aan hadda ku jirnaay waa sanadihiinnii waa sanadihiinnii mas-uuliyaddaas insha allahu tacaala wada qaata oo ku dadaala carruurtii tarbiyadoodii waxbarashadoodii mas-uuliyadda ayadaa xataa haddii laydinku dayacay hadayacina insha allahu tacaala ajir badanna waa ka helaysaan carruurtu inay idiin hagaagtana dee dantiinna iyo maslaxadiinna wey adduuniya aakharaba iyo ummadda danteedaba amaa aabbaha nebigu sal lla alay wasalam siduu yihi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyatihi waxaan leenahay waa mas-uuliyad ilaahay maalinta qiyaamada idinkala xisaabtami doona waxaa loo baahan yahay inaad carruurtii tarbiyadoodii waxbarashadoodii mustaqbalkoodii inaad ka warhaysaan arrintu way ka weyn tahay biil la bixiyo iyo gogol la seexdo way ka weyn tahay weliba waayahan iyo noloshan hadda la nool yahay wax sahlan ma aha haddaan ilmihii la isla celinin oo hooyadii aabihii dhinacyaha laga taagnaanin mawjadaha iyo dabaylaha socdaay ma sahlana hal ruux wuxuu qaban karaa wax ka qaban karo arrintu waa ka weyn tahay hawshaa marka wax weeye waa runtii dhaliisha iyo canaanta waa leeyihiin raggu waa leeyihiin waqtigan hadda jooga khaasatan ragga soomaalida ah ee intaan ka warhayno ilaahay tabaaraka wa tacaala haynoo xifdiyo carruurta oo guryaha allah inoo xifdiyo oo allah tabaaraka wa tacaala diinta allah inoo ilaaliyo akhlaaqdeenna allah inoo xifdiyo
إلهي تبارك وتعالى وحو ينسيها ينوبرك كيو انت تشرنا حنوصنا إلهي حنوك هكاقادو انت دبان دباتة الله كفايدو إلهي تبارك وتعالى انت وحبرنا الله وفضوديو dadka diinta faafinaya culimada iyo dadka akhyaarta rag iyo dumar oo diinta u taagan ilaahay tabaaraka wa taala diinta ay u taagan yihiin garab Allah ku siiyo ilaahayna tabaaraka wa taala ha u nusreeyo inagana dhamaanteen kuwa diinta ilaahay fahma oo ku dhaqma oo u shaqeeya Allah inaga dhigo khaatumadan Allah inoo hagaajiyo ilaahay labada daarood ma haynugu liibaano waxaan haysano caruur xoolo caafimaad Allah inoo barakeeyo diinteena Allah inoo barakeeyo إلهي تبارك وتعالى الدنيا أخربه وحب تعالى ينسيه وحب ابن الله ينقى قاضه ويحب وليس يدب إنجرنا إلهي تشهي نقض قاضه الله تبارك وتعالى وحب ويدي سنين بأسماء الحسنى وصفات العلا روح كستا ظروفتي سخاص كي أوليه هاي إيو ضمت قوني دي أوليه هاي إلهي تبارك وتعالى هو حقيقيو مرادك سخاص كان الله سهله هذا بالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك